السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو هذا صاحبيال ملك سو joogteen xilli kasto idin tahay wanaagsan bartan waa dhaay maale abar lagu falanqeeyo afka iyo dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida sidii caadada ahaydba waxaan marba idin soo roojinaa mowduucan islaamka ummadda Soomaaliyeed muhiim buu u yahay suugaanta iyo nolosha aadanaha maanta waxaan soo qaadanaynaa mowduuc ay bulshada soo codsadeen kaasoo ah suugaanta Soomaalida iyo waxa ay ka tiri walaalnimada waxaa la yiri aadanaha koonka saaran waxyaaba ugu waaweyn oo haysta waxa kamid ah walaalnimada boos weyn kaga jirta nolosha sidaas oo kan islaamka aad u booriyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sheegay xiriirka qofka muuminka ah muuminka kala dhaxeeya uu yahay sida xiriirka ruuxa walaalka iyo walaalkii kala dhaxeeya oo ay isku lahayn dhaxal iyo dhiig haddana waxay isku leeyihiin muuminiinta waxa ka soo walaal isku lahaa halkaas waxa ka garanaysaa in la xoojinayo laguna ma aragtay tusaale walaalnimada waxaad garanaysaa halka islaamku gaarsiiyay walaalnimada iyo weyninkeeda sidaas oo kan Nabi Maxamed markii uu hijrooday uu hijro ku tagay magaalada Madiina muslimiintii la socotay muhaajiriinta ahaa iyo muslimiintii ugu tageen magaalada Madiina ansaar ahaa xiriirka uu dhex dhigay saaxiibtinimo ma ahayne walaalo ayuu ka dhigay halkaas waxa ka fahmaysaa walaalnimada iyo muhiimadda iyo kaalinta ay nolosha u leedahay sidaas oo kale suugaanteena ma ilaawin suugaanyahanadeena in doora ayay ka hadleen muhiimadda walaalka u leeyahay waxaan soo qaadanaynaa doorka maanseen isleenahay waa kuwa ugu culus ama ugu mudan in bulshada lala wadaago waxaan ku horeynaynaa suugaan uu leeyahay Ilaahay u naxariistay Xudaydi oo abqari weyn ahaa Soomaali ku weynaa dhexdooda hees uu leeyahay oo loo yaqaano uur hooyo sida taariikhda ku xusan ninkan waxa uu heestan u sameeyay walaalkii oo ay kala lumeen tabid uu tagayo walaalkiis ayaa ka keentay heestan xalgalka ah ee aad ma aragtay suugaanta dhexdeeda miisaanka ugu leh wuxuu abwaankiisa ku bilaabay laba aabo wada dhalay iyo ubad walaalo ah arrinkii yimaadaba iska kaashanayo iska siiya gacantee indhahayga nuurkay ku ildoogsadeenoo adna isu kayladin uur hooyahaygo dhabarkii adoogay kii laga abuuree naas iyo abaydnimo kii ila wadaago sideen kuu ilaawaa ma ahaan karaay si aad ka garan karto erayada heesta abwaanku wuxuu ku fariireystay sidii walaalkii u tagaayo iyo wax kala dhaxeeyo wuxuu yiri naas iyo abaydnimo kii ila wadaago sideen ku ilaawa ma ahaan karaysi naas iyo abaydnimo kii ila wadaago maarta kii aan uur ka soo wada baxnay uur hooyahayga oo hore u soo yiri wuxuu qaybta heesta hore sidoo ku leeyahay uur hooyahayga naas iyo abaydnimo kii ila wadaago qaan maarta naas wada nuugnayo abaydin waxa la dhahaa ilmaha marka maaragtay ay ka soo gudbaan naas nuujinta barax tiran ee maaragtay waxa ugu horeeyo afka loogu tiro cuntada loo bilaabayo ayaa loo yaqaan abaydinin waxa afka qalaad lagu dhahaa weyni naasi abaydnimo kii ila wada kaan soo wada barbaarnayo sideen ku ilaawa ma ahaan karaayo waan ku tagayaa ayuu leeyahay Ilaahay u naxariisto abwaanka iyo walaalkiisa waxaan ku xijinaynaa hees isna uu qaado Axmed Alcigaal sida asaga uu sheegayba Axmed wuxuu qaaday heestan walaashiisa oo maaragtay isaga la dhalatay oo aad u jeclaa wuxuu ka suugaanta galiyay hees weyn oo qof kasta oo maaragtay walaashii jecel ama wanaageeda jecel hees maaragtay uu fariin ahaan ugu diri karo ama uu qaadi karo qof kasta oo maqlaana oo xasuusanayo walaalku dunida u jecel yahay wuxuu cigaal leeyahay walaashayga calisooy aakhiro wehel lama aho wakiil la isuma noqdee wacaal la isuma hayee walaashayga calisooy intay wada nool yihiin hadday lagu waajibiyo xaq weyn isku leeyihiin xoon ifka la isku taro cad iyo jiir wada dhasho wadaaga naftaanahe walaashayga calisooy aniga waagii baryaba wanaagaagaan jecelahay wadeecan kula nabcahay in cadow kugu wiirsadiyo walaashayga calisooy cigaal wuxuu leeyahay walaashay calisooy aakhiro wehel lama aho wakiil isuma noqdee walaalnimada adduunka ku agtahay leeyahay intay wada nool yihiin hadday lagu waajibiyo intii maaragtay nolosha ay jirto waxaan ifka la isku taro walaalnimada maaragtay saas la isu garab joogsado oo sidaas ay cigaal maaragtay walaashi fariintaas ugu diray ilaa maantay suugaanta ugu jirtaa sidoo kale waxaa jirta hees weyn oo qaado Deeq Axmed Geyd oo yara ka hadlaysa walaalnimada iyo maaragtay sida ay ku qurxoon tahay waxay Deeq Axmed leedahay haddaan la isu heshanayn si weyn la isaga warhayn wanaag lagu wada dhaqmayn maxaa loo yahay walaal haddaan waxyaha naftiyo wadnaha la isdhaafsanayn xubin la wadaagi karin maxaa loo yahay walaal Deeq Axmed heesteeda su'aal
ay ku bilow su'aal ay nooga baxday iyadoo maaragtay raadinaysa wax maaragtay walaal loo yahay. waxayna soo sheegtay sidii ku qurux badneed walaalnimada haddaan la isaga si weyn la isaga warhayn. waxaa la walaalnimada ayaa ah maaragtay isu danqasho iyo iska warhayn iyo maaragtay kalgacal ah. jawaabaha ay rabtana isla maasida ay ku sheegtay. waxaan raacinaynaa hees uu fariin ahaan ugu diray ilaahay u naxariistee maxamed mooga liibaan walaalihii ama saaxiibadii banaanku maqnaa uu ka mid ahaa Faysal Cumar Mushtaaq uu fariin ahaan ugu diray walow aysan wada dhalan saddexdooda, laakiin saaxiibtinimadooda iyo wanaagooda iyo maaragtay waxa ka dhexeeyay ayaa u dhignaa walaalnimo. markaas ayuu u diray hees walaalnimo ah maxamed mooge uu fariin ahaan ugu diray. wuxuu heesta ku leeyahay walaalkay dhabiyo dhiigaygiyo dhoofkiinu wuu igu dheeryaho wax idin dhiba ilaahay ha idin dhaafiye dhulkii hooyo waa kii dhaqashaduna waa meel waan idin dhaariye ha isdhalinka dinin. wuxuu leeyahay dhoofkiinu wuu igu dheeraaday, dhulkii hooyo waa kii dhaqashaduna waa meel, dee dhulkii hooyona waa maaragtay lama huraan in maaragtay lasoo shaqaysto oo la xamaashana iyana waa meel waa idin dhaariye ha isdhalinka dinina. ilaahay ku dhaarshiye wuxuu leeyahay ku imaada saa ku baxdeen. innaga waxaan ka aaminsaneen qurbaha walow ay wax ka jiraanba qofkii tagaa maaragtay inuu dhaqan bedelmo oo u dhaqan guuro oo maaragtay uu ka tago idihii iyo diintii uu ka tago. taas ayuu maaragtay ka dhaarinayo leeyahay in dhaariyay ha isdhalinka dinina. waxaan moogana halkaas ayuu la maray. waxaan kusoo gabagabeynaynaa hees uu qaado Cumar Dhuule Cali ilaahay u naxariistee isagana ku sheegaya walaalnimada iyo maaragtay wanaageeda. wuxuu leeyahay xigta iyo walaal waxa lagu xasuustaa xanuun iyo markay dhibi xeradaada taalle. dhibkaa iyo nacab haddaan kala xisaabayn xoolaha ma dhaantid. wuxuu leeyahay walaal iyo xigta waxaa la xasuustaa xanuun iyo markay dhibi xeradaada taalle. marka loo baahdo ayaa la xasuustaa. hade walaalaha isma dul saaran oo dad maaragtay isku maaragtay hawl qabtaa ma aha. waxaa maaragtay walaal ama xigta la xasuustaa markaad u baahato. qofkii xilligaa la waayay ayuu raadinaya Cumar Dhuule. wuxuu leeyahay haddaan kala sooci karin qofka maaragtay ku gargaar i garaba iyo qofka kuu nacaba haddaan kala saaran karin waxma dhaantid xoolaha iyo Cumar Dhuulena leeyahay ilaahay u naxariiso dhammaan intii dhimatay. sugaanta hadda aan marinay dadkii wax ka lahaa kuwii dhintay ilaahay u naxariisto, kuwa nool waxaan ilaahay uga baryaynaa cimri dheer caafimaad iyo cibaado leh. walaalaha maanta nool waxaan ilaahay waarta uga rajaynaynaa kalgacal iyo wanaag iyo sidii walaal u qurux badnaa. aadeen salaamayna barnaamijkii maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynay.